kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Sooyaal TV kuna soo dhawaada barnaamijka ardayga wararka oo ah barnaamijkeenu habeen walba aad halkan si toos ah uga daawan doontaan caawan uu yahay habeenkiisii kooban qodobada aan barnaamijkayaga caawayto ku soo qaadan doono waxa qayb ka ah xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo isku shaandhayn sameysay qaar kamid ah golaheeda wasiirada ee waliba beesha caalamka oo ka soo jawaabtay eedayntii ay u jiday iyo warqadii u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxaan qodobkaasi kaga haynaa falanqeyn iyo waxa uu ka dhigan yahay hadalkaasi ku saabsanaa beesha caalamka sidoo kale waxaad ku daawan doontaan waxa guud ahaanba istaagay dhismihii garoonka diyaaradaha ee degmada Cabdulwaaq iyadoo ay booqdeen mas'uuliyiin ka tirsan galmudug qodobadaasi qodobo kale ayaa ku daawan doontaan ee u diyaar garoowa daawadayaal barnaamijka faahfaahsan isku soo laabasho wanaagsan daawadayaashana qiimaha leh waxaad la socotaan barnaamijka ardayga wararka hadaynu ku bilowno qodobada yada caawaytana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isku shaandhayn ku sameeyay qaar kamid ah golihiisa wasiirada waxa uu golaha iyo waliba shaqadii wasiirnimo oo uu kala bedelay wasaaradda duulista hawada iyo waliba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ismaan Dube ayaa ka warbixiyay isku shaandhayntaasi iyo waxay ka salaysan tahay intaba بسم الله الرحمن الرحيم وجهدو مقعابس iyo isku bedel xubno golo wasiir ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markuu arkay qodobka 97 faqradiisa 3 ee dastuurka dalka markuu arkay qodobka 98 faqradiisa 2 xarfaha a iyo ba ee dastuurka dalka markuu arkay qodobka 10 xarfaha a ba iyo c ee dastuurka dalka markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo isku bedelka iyo magacaabista wasiirada wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa uu magacaabay laga bilaabo taariikhda maanta mudane Durraan Axmed Faarax waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirada cusub ee gaadiidka iyo shaqada waxa la farayaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula kala wareegaan xilka waa mahadsantiin wili barnaamijka ardayga wararka ayaa la socotaan daawadayaal beesha caalamka ayaa ka soo jawaabtay eedayn ay u jeedisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya taas oo ku aadaneed in la ilaaliyo madax banaanida iyo waliba midnimada ummadda Soomaaliyeed haddaba beesha caalamka ayaa warkeedii waxa uu nuxroonaa inay ilaalin doonto midnimada iyo waliba madax banaanida ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeedna looga baahan yahay inay ka hormariso dantooda gaarka ah danta guud haddaba arrimahaasi arrimo kale waxaan wax ka weydiin doonaa oo stuudiyaha inagula sugan nasteex aadan cabdi qabyaaladiid oo kamid ah haldoorka Soomaaliyeed sidoo kalena ah falanqeeya arrimaha siyaasadda nasteex ku soo dhawow Sooyaal TV maxaa uu ka dhigan yahay hadalka beesha caalamka ka soo baxay runtii ma hadalkaas hadal haway meel badan taabanaya marka si loo fiiriyo muujinaya qiimka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo madaxbannaanida dalka inay aad u soo dhaweynayaan sidoo kale wuxuu muujinayaa in la hadlayo labada dhanba oo dadka wax diidanaya hadoo ay doorashadii wali hor taagan iyo tiimka dawladda ay la hadlayaan ay leeyihiin u nuglaada oo u danqada dalkiina qodobo aad isla gaarteen u soo bandhiga doorashada hal aado oo ummadda Soomaaliyeed u jiheeya wadada tooska ah marka waa fariin taabanaysa saddex qaybood oo qayb ah in ay leeyihiin dalka madaxbannaanadiisa waxa weeye waan dhowrayna waana dhaqan jiray adeecsanahay meelna inay ka tahay war isku tanaasul waxa weeye labadeen dhan kala aragtida duwanow isku tanaasula madina doorasho jeey waa culays horta dhan walba taabanaya siiba dawladda laftigeeda culays saaraya oo la rabo inay mar walba ay ahaato dadka danqanaya ama u dhimrinaya dalka dhan kale waxa moodaa beesha caalamka laftigeeda inay meesha ay hadalka ku soo qoraysa iyo ficilada ay sameeyeen ay kala fog yihiinba waxa weeye umad Soomaaliyeed hadii go'aano iyo masiir iyo talo ayada ay leedahay wax loo jahaynayo waa horta ay jeesnayd
marka laakiin laftigeeda waxay moodaa in cali garle caydna garle ay ka dhigayso ay labada kala aragtida duwan ay mid mar ay ka durso wada muuqaalka ka dhex muuqanaya ama ku dhex jiro humaag ku dhex jira ay tahay inay laftigeeda xal sax is gaarin oo waayo qofka meesha hadda maanta si aaminsan mad Soomaaliyeed ama nimanka hadda horjoogayaasha wax diidan ay diiday ay ku soo celinayaan waxa waaye inay maxkamad tahay ama meesha u sareysay ay tahay go'aan gaari lahayd marka dib go'aan gaarso xilay ilaayeen war idinka qaldan qaadkaas ku jiraan ka bax marka in maanta dhan haba qolay dhahan warqad soo saaraan waxay la tahay in laftay qayb ka tahay inay horumarka iyo jiritaanka Soomaaliyeed sidan u hayn bay rabaan inay maalinba meel ay ka sii tuuraan yahaadaan waa tahay maadaama aan ognahay inuu istaagay shirkii u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ma la dhihi karaa hadalkan beesha caalamka ka soo baxay waxa uu noqon karaa wado iyo inuu dib u furmo mar kale wax saameeyna oo had toos ma ku yeelan karo waayo waxaan ka garanaynaa maalin walba qodob bay soo jeediyaan maalin walba amar bay soo jeediyaan maalinba wax bay soo saaraan warqadaha marka tira bateen waxa ka soo baxay xor la'aanba marka waxay tahay inay 200 warqadood damban u laaban yihiin aysan warqadoodan wax micna miina sameeyeen maadaama aysan dhahaynba dawladda qaadkaas ku jirta waxa weeye waxyaabahaas kulma shaqeyn karo ama aysan oraneen dadka dawladda diina taageersaneen oo dawladda iyo awaamirta iyo sida habraac doorashada yahay ina marin waxa weeye idinka qaswayaal batin ama waxa weeye qaladkaas ku jirtaan ama waxa weeye ka jira nisaga ay qodobaayo ay ku canaanayaan hadii si raacinin ay tawlaaha idinku soo heshiiyay waa wali waa in sax ka muuqana ma ila tahay wax micnaan ma sameeyso warqadii hore 100 ka ay soo saaray hore xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ma la dhihi karaa dib ayay hadalka beesha caalamka ayadoo qadarinaysa inay u furto wada hadaladii ma dhici kartaa mar kale horta hadalkii wasiir Dube meel uu leeyahay totally wax hadal gali mayno ama arkaynba laakiin in dadkii hadalkii shirkii Sacuudi oo qodobadiisa markaas ku aasasnaa doorashadii September 27 in hada xal muuqda oo xal waara laga gaarin buu horta toos wacad hadalkiisa laakiin hadalka dawladda iyo hadalka beesha caalamka iyo maamulgoboleedyada labadaba waxa way wax micna ah oo hada go'aana oo ah shirna ma laga qabanayo ama shir baa la qabanaya in isku jirin baa ila muuqata shirkan hadii heshiinayeen ay ka tagayaanba inuu sii socon doono shirarka isku imaan doona bay u muuqataa beesha caalamkana go'aan iyo dekreeta ay soo saarto oo wax go'aaminaya ma muuqdo maamulgoboleedyadii wax diidana meel wax ku go'aaminayaan ama ayagana heshiiska ay kaga baxayaan ma muuqato dawladda meel ay leedahay shirda ma galimayno kuma jirto meeshan aad ba maasantahay nasteex daawadayaalkaasina waxaa nasteex aadan cabdi qabiyaal diid wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka ardaaga wararka ee Sooyaal TV qaybihiisii dambe ayaynu soo gaarnay waxa guud ahaan baa taagan dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Cabud waa kaas oo la filayay in dhawaan laami la saaro ayadana garoonku uu taagan yahay arrimo dhaqaale yari awgeed haddaba xildhibaano ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo booqday garoonkaasi ayaa ka warbixiyay waxa warbixin inooga diyaariyay amurahaasina wariyaha iyaga Yuusuf Cabdiraxmaan Alteeso qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta kormeer indha-indheena waxa ay ku tageen garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Cabudwaaq kaasi oo ay ka socoto hawlo shaqo oo laami lagu saarayo xildhibaanadan oo kala ah xildhibaan Mahad Kilic Warsame xildhibaan Osama iyo xildhibaan Beeli ayaa socdaalkooda kadib waxa ay la hadleen warbaahinta Sooyaal iyagoona ka warbixiyay socdaalkoodan indha-indheenta aan rabnaa inaan u sheegno in garoonkii shaqadiisu ay istaagtay ayna u istaagtay number 1 laami sidaan markaan wareysanay guddiga eelaboorka ay noo sheegeen inay maaragtay shaqadii ay joojiyeen jaygaas aad u joodaan ay rabaan inay guraan oo ay rabaan inay meel dhigaan intii laga helayo laamiga lagu dari lahaa waxay rabaan ay hadda noo sheegeen in sidiisaas uu yahay oo hore ay rabaan inay maaragtay shaqada ugu bilaabaan waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dadka horumarka deegaanka jecel inaysan 150 mashruuc isku garab furin ay marka hore hadba mid dhamaystaan waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dadka jecel eelaboorkan dhamaystirkiisa awalna bilaabay in maaragtay siyaasiyiin hadday yihiin qurba joog kulli waxaan ka wada codsanaynaa inay ay u soo wada joostaan dhamaystirkiisa waxaanu soo booqannay garoonka weynaa Cabudwaaq oo diyaaradaha garoonkan run ahaantii waxaa loo bilaabay dib u ballaarintiisa iyo ii sheeg in dib u habeen lagu sameeyo garoonku wuxuu soo qaatay hadda uu furan yahay in hadda muddo 1 sano meelahaas ku dhow waxaynu u mahad celinaynaa horta run ahaantii Allah subxaanahu wa ta'aala iyo bacdigeed guddidii gacanta ku haysay guddida shaqo badan bay ka qabteen
garoonku marka hore wuxuu ahaa jay diyaaraduhu ka haadaan waa la ballaariyey oo sidaan balcan waxa laga dhigaa umaleynaya 80 inuu ahaa laamigan waxaa la qorsheeyey in marka hore 1 kilomitir iyo bar la saaro laami ah ilaa 2 kilomitir sidaas uu ahaa garoonka shaqadiisa hadda way istaagtay waa u jeedaan jaygii laamiga loogu talagalay in la saaro weeye waxa hadda la gurahayo oo la rabo in xayndaabka airportka qayb ka mid ah la geeyo oo lagu guro airportka shaqadiisa waxa istaajiyay waxa ka mid ahaa in la waayay laamigii waxa qarashaadkii qayb ka mid ah la waayay gudidii isxilqaanka marka hore gacanta ku haysay magaalada contributionka dadka magaalada degan iyo qodadka qurbaha joogay dadka dawladda ugu jiraba intaba ay marka hore contributionka ka qayb qaadanayeen contributionkii istaagay weeye waxa shaqada joojisay cilado kale ma jiraaneen waxaan ugu baaqaynaa qolo kasta oo Soomaaliyeed horumarka deegaankan jecel ama ummadda horumarka dalka jecel guud ahaan inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhamaystirka garoonka Caabudwaaq waxaan maanta joognaa airportkii degmada Caabudwaaq oo runtii aad u jeedaan airport aad u balaaran ah shaqo aad u qurux badan laga qabtay runtiina u baahan dhamaystir iyo maaragtay in maaragtay gacanta la wada saaro isku mar waxa soo baxaysay maalmahan dambe in maaragtay laami kale to la dhagax dhigayay waa horumar weyn asaguna deegaanka ku soo kordhay laakiin waxaan sheegaynaa oo cod dheer ku sheegaynaa airportka Caabudwaaq inuu yahay meeshii ugu muhiimsanayd ee magaaladan Caabudwaaq dadka ku nool iyo dadka u dhashay oo qurba joogta ay gacanta ku qabteen si fiican uga qayb qaateen horumarkiisa haddana maraya meel xasaasi ah oo xaaladiisu ay taagan tahay in maanta loo waayay laamigii la saari lahaa iyadoo la isugu tagay qurba joog qaran joog iyo hay'adaha maaragtay deegaanka ka shaqeeya intaba waxaan aad u amaanaynaa shaqada quruxda badan iyo balaarinta la ballaariyay airportka la qabtay sidoo kale to waxaan wareysanay guddiga airportka oo niman aad iyo aad ugu soo dhabar adeegay ah shaqadan ay qabteen waxay noo sheegeen in hadda airportku uu u taagan yahay laamigii oo laamigii aan la haynin intiisi kalena la qabtay oo ballaarintiisii iyo maaragtay dhamaystirkii dheerarka intaba la qabtay kaliya ay ka dhiman tahay hadda laamigii in la saaro waxaanu cod dheer mar labaad iyo mar saddexaadba ugu sheegaynaa bulshada reer Caabudwaaq iyo qurba joogta u dhalatay deegaanka oo kaalintii ugu muhiimsaneed ka qaadatay awal dhismaha airportka la oran karo ayagaaba maaragtay gacanta ku wada hayay waxaan mar labaad u sheegaynaa iyo mar saddexaad intaba in ay ka qayb qaataan dhamaystirka airportka socdaalkan xildhibaanada ayaa ku soo aadaya xilli mashaariic kala duwan oo horumarineed ay ka socdaan gudaha magaalada Tani Caabudwaaq Yuusuf Cabdiraxmaan Soyaal TV magaalada Caabudwaaq guud ahaan daawadayaal intaas ayuu ku eegyahay barnaamijkayaga ardayga wararka oo barnaamijka toddobaad walba aad si toos ah uga daawataan saacadu markay tahay 9 fiidnimo ama 3 saac telefishinka caalamiga ee Sooyaal barnaamijka waxaan la socodsiinayay anigoo Ahmad Bashiir Ismail Xilif dhinaca farsamada iyo kaamiraduna waa Farxaan Anshax intaanu barnaamijkan mid kala mid ah ku kulmayno waa guud ahaan Sooyaal TV oo idin nabadgeliyo